igu billaahi igu tallaahi oo aan magaca ilaahay ugu dhaaranayaa in aan u guto gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Dr. Cali Siciid Fiqi ayaa maanta ka qayb galay munaasabada dhaarinta xubnaha cusub ee golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaasi oo dhawaan uu magacaabay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen xubnahan maanta la dhaariyay ayaa waxaa loo kala magacaabay wasaaradaha cadaaladda iyo warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya munaasabadan dhaarinta ah oo ka dhacday xarunta madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan madaxtooyada maamulkaasi iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Axmed Cali Muuse oo goobjoog ka ahaa munaasabada ayaa dhaariyay xubnahan wasiirada ah ee cusub igu billaahi igu tallaahi oo aan magaca ilaahay ugu dhaaranayaa in aan u guto xilkayga si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka iyo diintuba dhowraayana dastuurka iyo shuruucda kale ee u degsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wabillahi tawfiiq gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cali Siciid Fiqi ayaa dardaaran u jeediyay wasiiradan cusub mas'uuliyad runtii aad weyn ayaad qaadeen dhaartana dhaar maaragtay wax oo sahlan ma ilaaha magaciisa lagu dhaartay waxaan rajaynayaa maaragtay mas'uuliyadii sidii liidin igmaday iyo dhaarta aad dhaarteen sideedina u fulisaan marka waxaan leeyahay fadlan deegaanka Koonfur Galbeed danta guud ee qaranka ayaan rajaynaynaa inaad ka shaqeysaan waxaan idinku hambalyeynaya xulista oo madaxweynaha idinkaga soo xoray intaasoo shakhsiyaad oo meeshaas jooga taa iyada nafteedu waxay ii tahay maaragtay inuu madaxweynihii dareemay inaad tihiin laba shakhsi oo mas-uul qaadi kara oo hooshii loo igmadana fulin kara waxaan leeyahay kusoo dhawaada golaha wasiirada Sumaya Daahir Salaad VOS TV Muqdisho.